sanad guradii 16aad ee ka soo wareegtay maalintii loo aqoonsaday xuska shuhadada ururkii ee sanam oo ku beegnayd maanta taariikhdu ahay 17 bishii 2020 ayaa laga xusay magaalada Berbera isla markaana waxa munaasabad lagu weyninayo xuskaasi shuhadada ururkii ee sanam lagu qabtay afaafka hore xafiiska jamciyadda Sooyaal ee gobolka Saaxil waxaana ka soo qayb galay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariin Aadan Saciid iyo xubno ka tirsanaa mujaahidiintii ururkii ee sanam marti sharaf qolo badan oo isku jirtay qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay ugu horreyn waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha jamciyadda ururka Sooyaal iyo mujaahidiin kale oo tiro badan heer gobol heer degmo mujaahidiinta dhalinyarada haweenka waan idin salaamayaa kulley Sooyaal de waa aabihii Somaliland guusheedu waa Somaliland la quruxdeedii waa Hargeysa bay ka muuqataa inaguna way sugaynaa inaynu la mid noqono burcaduur hore qura waxa ku jira in allaaliye intuu soo shahiiday xorriyada dalka iyo inta dambe uu shahiidi doonto wali ku jirta difaaca dalka iyo qarankan sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mujaahidiinta SNM oo ku dheeraaday halgankii qadhaadha ee ay la galeen xukuumaddii kaliya Siyaad Barre ee Soomaaliya inamada yaryar dhinaca xeeranaya raggii dhintay la midbaatiin wadankiina ilaashada abooga ka ilaashada cadawga ka ilaashada naftiina u hura maalintaasi horta waxay ahayd 17 Oktoobar habeenkii qoolbuurle waxa galay doolaal iyo madaxdiin oo arbushay kula dilay rag 12 bisha 11 waxa la galay balidhiig 13 waxa la soo afduubay diyaaradii ay awal cadami iyo baashadiigi wateen 13 bisha 12 waxa la galay buuraha 57 habeen ayay dhaceen 6 howlgal ee la inagu aqoonsaday ama ay ku muuqatay xabaalaha beebeeyada maalintan ay u baxday hordhac u ahay waxaan halkan si gaar ah u sii amaanaynaa horta wixii dhintay Ilaahay uu naxariisto wixii nool Ilaahay caafimaadka iyo bashbashka iyo barwaaqada aan soo Ilaahay u siyaadiyo waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa gabagabadii munaasabadan ayaa iyaguna waxa hadal ka soo jeediyay xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaana yiraahdeen maanta وحفلتني joogtada hay'ad sanad walba waa 17 Oktoobar waa maalin taariikhiya reer Soomaaliland way og yihiin cidii ina jecel iyo cidii ina nacab kalena way og yihiin dhaadashada maanta ee maalinta mujaahidiinta ee 17 Oktoobar ee gashay diiwaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahidiintii xoreynta dalka intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta nool iyo awlaaddoodana Ilaahay ha barakeeyo inta xanuunsantana Ilaahay caafimaad ha siiyo doofigii dulligii ay dadka ku jireen aanay u horin naftooda suurtagal ma noqoteen maanta inaynu Somaliland dambe iyo nolol dambe aan dib u yaqleelno markaan maalintan iyo raggii intii ka dambeysay oo soo dagaalamay ee dalka soo xoreeyay waxa laga yaabaa bulsho badan ama generation imika kacay inaanay macnaha ay maanta waayo nimcada qofku nimcada haysto ma yaqaano qofka xanuunsan in baad ayaa yaqaana caafimaadka qofka caafimaadka qaba xanuunka intuu caafimaad qabo way yartahay in ka mahad celisa waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Sulgoobjoog TV Berbera